oo wakiil ka ah magacoodana ku hadlaya 54 mudane muxuu ahaa kulmiye iyo rag la jira oo ka mid golaha in ay muxuu ahaa halkan idinkala hadlaan ayagoo intaa wakiil ka ah waxaan doonaynaa inaanu idiin soo gudbino arrin curad ah oo inagu cusub oo aan weligeed intii Soomaaliland jirtay aan hore uga dhicin golaha baarlamaanka markaan ujeedo waxaan u jeedaa golaha guurtida iyo golaha wakiilada boroseska sharci dejineed ee ay ku wada shaqeeyaan aan hore uga dhicin waan hubaa inaan taa ku adkaysto oo nidhaahdo ma aha arrin hore uga dhacday golaha baarlamaanka gudihiisa waa arrin uguba oo ku cusub waxaan isleeyahay waxay wada dareensan tihiin oo la socotaan waayo arrin qarsoodiye maaha annaga maanta waxay nagaga soo hagtay inuu 22 bishan oo maanta ah inaanu arrintan idiin soo gudbino laakiin baryahanba way ku jirtay saxaafadda oo waa lala socday oo waxa laga yaabaa inaad la socotaan war badan ka haysaan arrintaas waxa weeye xeerkii diiwaangelinta muwaadiniinta iyo codbixiyayaasha ee xeer golaha yimaada ugu dambeeyey oo doodiisu soconaysay 4 cisho oo 9 qodob oo qodob resolution golaha kaga baxay oo loo gudbiyey madaxweynaha isaga oo resolution golaha kaga baxay ee aan xeerka gelin iyo 8 qodob oo kale oo horteeda yaala golu ku asixiyey maalintaas sidaan xusuusanahay golaha waxaa hogaaminayay oo gudoominaya gudoomiyaha golaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Ciro labada gudoomiye ku-xigeenka in la joogay maan jecelahay waxaa fadhiyay golaha marka isaga lagu daro 66 mudane in saxaafadda joogeen qaarkiinta waa laga yaabaa xeerkaasna idin sheegay qodobada la ansixiyay la isla qaatay oo dood laga soo minguuriyay oo isagu soo minguuriyay gudoomiyaha iyo xogeyntu ay soo minguuriyeen oo qodobada aan idin sheegay ah waxa gacanta u taagay 64 mudane oo ka mid ah 66 fadhiyay nin uu ka aamusay ruush buu ahaa halkan dhinacayga fadhiya Ibrahim Ruush ninka kalena waxaa gudoomiyuhu aan codaynin 64 mudane ayaa u codeeyey sida processku yahay marka go'aan goluhu qaato ee loo codeeyo hadduu ku guuleysto muxuu ahaa mooshinka marka arrinka loo codeynaya inuu ku guuleysto oo uu leeyahay xeer dejinta gudbinta guurtida gudoomiyaha iyo xogayaha guud ayaa gudbiya oo saxiixa maalintaa ayadoo mawaadiic kale oo xasaasiya ay golaha hor yaalaan oo ay ka mid yihiin miisaaniyadda iyo ansixinta xubnahii komishanka cusbaaya la doortay ayuu gudoomiyuhu markii la codeeyey xidhay golaha oo fasax baa lagu jiraa labada qodobna qabya lagaga tegay sidii baa goluhu fasax galay lagama hadla labada qodob oo lama odhanin muxuu ahaa maxaa labada qodob loo coday waayo waxaan isleeyahay kol haddii 8 November la soo noqonayo waxba yaan la isku cuba dhowrine waqtigooda kol haddii aan waqti ka dhacayn inkastoo komishanku ay ka gedisnaayeen miisaaniyadda oo miisaaniyadda waqti badan haysato maanaan ka hadal 4 cisho gudahood ayaa aniga la soo sheegay oo nin xildhibaan oo imkaan filayo halka fadhiya soo sheegay in xeerkii aanu gudbinay ee goluhu ansixiyey ee 64 mudane uu uga codeeyey inaan xeerka loo gudbiyey guurtidu aanu ahaynkii ee uu yahay mid ka gedisan waxaanu soo qaadnay xeerkii asalkii ka yimid xukuumadda iyo xeerka uu gudoomiyuhu gudbiyey ayaan soo qaadnay waxaanu ka soo saaray qodobada halkaa ku qoran ayaanu ka soo saaro 9 page ka kooban oo aanu ku soo minguurinay sidii goluhu ku ansixiyey iyo sidii uu gudoomiyuhu wuxuu ku gudbiyey nuuca ku gudbiyey ayaanu ku soo minguurinay
waxaa kaloo halkaan ku haya sagaalkii qodob ayaan idiin sheegayey oo ka kooban afartaa iyo afartaa dambe oo ayaguna intii goluhu codeeyeen markii aan ogaanay inaan xeerka la gudbiyey ee golaha laga gudbiyey aanu ahayn muxuu ahaa kii loo codeeyey annaga waxay nagu noqotay fajac iyo waxaan yani confusion baanu qaadnay waayo waxaanu garan weynay waxa kalifay in arrinta noocaasi ay dhacdo anaan kusii dheeraanhayn oo ragga iga dambeeya ay tafsiir badan geli doonaan annagu markaanu halkaa marayno waxaanu guurta u gudbinay qoraal aan u malaynayo 49 ama 50 ay ku saxiixan yihiin ayaanu u gudbinay goluhu ka gudbay oo aanu dabadda ku saxinay maadaama fasax lagu jiro oo aanu guurtida ku leenahay xeerka la idiin soo gudbiyey maaha asalkii goluhu codeeyey ayaanu u gudbinay halkaasuu yaallaa dhinaca bidixdeedu yaallaa golaha guurta waanu u gudbinay muxuu ahaa waxaan ku caddaynay inaanaan annagu waxa la soo xeerka gudbay ee guddoomiyuhu gudbiyey oo saxeexay inaanu ahayn asalkii goluhu codeeyey sharciyadda xeer dejintu way lumaysaa marka waxa golaha laga gudbiyey uu noqdo waxaan goluhu codayn oo ay ma waafaqayso procedureka caadiga ah muxuu ahaa ay ku macaamilaan labada gole guurtidu markii xeerkaasi gaaray taa heleen way soo celiyeen warqaddii way soo celiyeen muxuu ahaa xeerkii warqad baanay soo raaciyeen ay leeyihiin muxuu ahaa arrinkaa dib isugu noqda oo muxuu ahaa isoo waafajiya oo xeerkaa muxuu ahaa dib ugu noqda maadaama uu ka jiro shakiga noocaasi oo shakigiina ka baxay oo warqaddaasi gudubtay calaa kulli xaal waxaa iyaduna dhacday way sarkeen guddoomiyaha iyo guddoomiyaha guurtidu way sarkeen guddoomiyaha iyo xubnaha golaha wakiilada xubnaha kale ee shirguddoonku labaduba arrin baa lagu ballamay oo ay isla qaateen muxuu ahaa oo ay isugu waafaqeen ayagu laakiin unfortunately ama nasiib darro waxaa iyaduna dhacday in guddoomiyuhu intuu arrinkaa galay weliba guddoomiyaha guurtidu wuxuu igu yidhi aniga personal igu yidhi apology buu noo keenay wuxuu ku yidhi qalad baa dhacay waanu saxaynaa waxyagii waanu khamiista haynoo ahaato khamiistaadu soo noqonay xubnaha kale shirguddoonkuna way noo sheegeen sidaa isku yidhaahdeen laakiin maalintii kowdii iyo barkii meelahaasay ahayd baa waqtigay kala tageen kowdii ilaa labadii intii u dhexaysay labadiiba warqad kale ordisa ayaa u tagtay ayagii oo iyaduna ka hadlaysa in procedureka muxuu ahaa aan golaha waxba ka gelin guurtida arrintaas ay fuliyaan procedurkii caadigaha sidaasaa muxuu ahaa warqaddaasa u tagtay oo aanu aragnay oo aanu haynaa mudanayaal waxaan idiin sheegayaa dhammaantiinba arrintaas aan idiin sheegayaa oo ragga dambe ay tafaasiil ka bixin doonaan wax xeerdejinta dalka marnaba ka soo gashay ma ahayn sabab allayaala sabab kaliftana ma garanayno anigu intaasaan hadalkay ku soo koobayaa waxaan uga bixi doonaa raggan kale muxuu ahaa asxaabtayda halkan fadhiya